baasaboor adduun aanu ku samaysanay maamul kala dambayn dastuur aan laga samaysanay imise dawlad waxaa jira caalamka dawladooda dawlad kale ka go'ay oo ixtiraafkooga sugaya ixtiraaf un baanu u baahanay bini'aadan aanu u baahanay ma jirto ixtiraafkana waxaan kudhi caalamkaanu ka sugayna laakiin waxaanu nahay dawlad isku filaatay lacagteedii haysata calankeedii haysata hubkeedii haysata waxaan kudhi xuduudaheedii haysata dekadaheedii haysata oo adduunaan oo loo soo daawasho tago loo soo dalxiis tago oo caalamka laga yimaado loo dalxiis tago bidhagaysa hadda صوت oo madaxweyne iyo ku-xigeen iyo waxaan kudhi adduun haysata oo caalamka looga yimaado oo safaarada leh oo adduun kasta safaarada u fadhiyo markaa haddii aad adigu diidood macaara tahay sideeda u sheeg laakiin anagu dawladda somaliland baanu nahay waxaanu ixtiraafna waanu sugaynaa marka idhagayso horta qofka hadduu rabo inuu hadlo hadli karaa idigtahay meeqa sanaad sugayseen اعترافك وحشيدي ست انت دونتها lagu gaadho waa wadan waa iga jawaab hayo kaaga jawaabaya waxa la yiri magaalada Roma maalin la weydiiyay iga jawaab waan kaaga jawaabaya isugu waaye waan kaaga jawaabaya thank you waan kaaga jawaabaya waan kaaga jawaabaya ama 30 sano aanu sugna ama 9 sano aanu sugnay magaalada Roma maalin laguma dhisin haday dhageyso magaalada Roma maalin laguma dhisin 30 sano jada 40 haday noqoto laakiin halka yaga nabad ku haysano oon qarax ka jirin oon bugbac ka jirin oon waxba ka jirin oon nabad ku haysano ixtiraafkuna waa subag xeelado iska imanaya ilagayso qaramada midoobay hay'adaha wax bixiya maxay anaga noo soo marana idinkana hoosta nooga timaa noo hoos fariisataan idinku ayaa anagoo maxaa de anagoo dawladda Soomaaliya صح oo dawladda Soomaaliya adigu dawladda Soomaaliya sida dad horta idagayso waxa tiri dad meel degan baan nahay dawlad baan nahay meel dhisatay baan nahay kan samaysatay baan nahay hadii aad tihiin dawlad meel degan oo la idin aqoonsan yahay ama aad tihiin dad calan leh how can madaxweynaha Soomaaliya la inagu soo mara waxa yar aawnaadaha la bixinayo la inagu soo dhiiba u tagtaan ka soo qaadataan maxaa adduunka saa anaga u tagno naloo soo dhaweeyo baasaboorkana wadano maxaa idin diiday okay ma dhamaysatay waan wata wali ma dhamaysanin baasaboorka aawadatiin inta baxdaan Soomaaliya aadaan maxaa baasaboorkeena u doonataan aad dhuumasho ugu soo gurataan aad ugu dhaaftaan taasna iyo jawaab ayadana hadaa dawlad tihiin aad meel degteen ama meel fadhidaan maxaad waxaana aw arursanaysan ugu baxaysaan daadsid intaas weeye okay ma dhamaysatay laba bisan kugu dariya hadda Sweden oo kale markaa isdhiibay 8 gabdhood oo meesha hadda sheegaysa ka soo jeedo ayaa immigration-ka wada tagnay Soomaali baa ahay qabiilkaas ahay xamara ka imaaday halkaas deganahay no ala yiri haye maxaad u sheeganaysaan Soomaalinimo adoo dhees meel deganahay ani koonfuraan sheegtay inaad dhulbaanta ahaan sheegtay baasaboorka waa laysiiyey 3 bilood ay ku qaadatay laakiin haddaa tir nabada haysana maxaad iskugu dhiibtaa Soomaali baa nahay ay immigration-ka u tagtaan baasaboorka u geysaan that's it inta saarayna ogaado ayadana ma dhamaysay yes waa dhameeyay okay sida moodkayga ga jir okay waxaan kuu sheegayaa horta waxaad tiri anagoo abad naga soo doonataan adigu ma tahay maamul goboleed Soomaaliya hoostaga waa su'aashayda adigu markaad anag ka leedahay waxaad ka soo jeedaa gobolada waxaad ka soo jeedaa gobol Somaliland kamid ah iyo Puntland baan u dhaxeeyaan malaynaya okay adigu ma leedahay marka maamul goboleed calan haysta oo Soomaaliya ka tirsan ma leedahay waa su'aashayda taaniyan marka la yimaado maxay haytay qurbaha maxay haytay aynu qaxootinimo isku dhiibayno xataa qabiilka Muqdisho degani
muqdisho lama sheegto xataa caasimadda lama sheegto waxa lagu odhanayaa waa qabiilkii madaxda ka soo jeedaa haddaan somaliland sheegto sharcan u kabir bayna keenay dee haddaan somaliland sheegto cid sharci siinaysaa ma jirto jaalle waa waddan nabada isku filan maxay tahay wax kasta haysta caafimaadkiisii wixiisii oo dhan haysta aayanta diyaaradda isaara la celinaya maxaa markaa ay geliyey waddanka baaba'san ee hoogay oo baa inaa sheegta dadan baa igu khasbaysaa halow taanu sheegtaa waa taas waddanka baaba'san waa la sheegtaa oo berigii ingiriiska la tegi jiray waddamadii lagu soo duulay maxay tahay somaliland ba ayaa maxay tahay la sheegan jiray idinkoo marba idinku yaana ku odhan adu maamul goboleed ka tirsan ma tiri xataa soomaaliya adiga yaana ku odhaninba adigu maamul goboleed somaliland waxa tahay maamul maxay tahay somaliland magaalo ka tirsan baa degtaay naimadagi adiga yaana ku hay jawaabin de madagi de hay jawaabin dhamaysa waayahay de jaal hiidku yuuna ku gaarin amba waan ku dhegeysanay ima gaari caadi waan wada hadlay hay jaal ay dhegeysada xabad baan isku haynaa ku soco hay jaal ay dhegeysade ku soco ha markaad adigu tahay waxaad odhan kartaa aniga oo Puntland aniga oo Jubbaland aniga oo maxay tahay galmudug aniga oo maxaybaad oran kartaa adu markaad maamul goboleed leedahay aniga Somaliland markaan ku doodayo kala waxaan leeyahay anoo ka soo jeedo gobolka Awdal anoo gobolka Salal ka soo jeeda baan oranaya adigu markaa Soomaaliya markaad ka soo joogto anoo maamul goboleedka hebel ka soo jeedo waanaad laabta garaacato laakiin haddaadan maamul goboleed ku lahayn inaad laabta garaacato ma ahan oodan ka soo muuqan tani intaan kugu daray waxay tahay baasaboorka baa tiri baasaboorka Somaliland waa la qaataa waana lagu tagaa wadamo badan ka kalena qofkii wadano kale inuu taga doonaya ayaa ka kalena soo qaata idhageyso wadan ixtiraafkiisa suga weeyaan intaasoo wadan Suudaan intay ixtiraaf sugays wadan kasta ixtiraafka inuu sugo wuu soo maray waana la soo wada maraa wadan kastana mar buu helaa jaale laakiin anagu intaan ixtiraafkayga sugayno idinku dhexdaha ku dhumina ee waxaad samaystaan maamul goboleed ama maamul Somaliland ka tirsan ama maamul Soomaaliya ka tirsan mid samaysta anaguna intaas aanu maxay tahay aanu sugayno ixtiraafka jaale waana ku dhaweeyay soo dhow maxaad tiri waa ku dhameey Soomaali muudka iiga markaa hadda horta dhageyso waxaa ti maamul goboleedada Soomaaliya ka jira annaga maamul goboleed baan ku leenahay qaatumo of state Soomaaliya aba ay ka hoos bixin baan ku iri annagaba maamul goboleedada jira waanu leenahay haddaan noqon hadda baro qaatumo ayaana la yiraahdaa of state Soomaaliya ma fahantay aan ku bar haddaadan baranin hadda baro mida labaad baan ku sheegayaa waxaa tiri xidigtahay waxa weeye qayb ka mid ah Somaliland baa degtaan baa tiri no dad dhul leh baanu nahay ma fahantay dad maamul goboleed leh Jubbaland Puntland Somaliland khaatumo of state of Soomaaliya yay ka hoos bixin sistaray yay ka hoos bixin maamul goboleedka ku jirnaa waxaan hoos tagnaa Soomaaliya maadaama Somaliland ay tahay maamul goboleed khaatumo of state Soomaaliya iyaduna maamul goboleed yay ka hoos bixin iyaduna mid si xigto meel waxaa tiri meel baad ka degtaan baad tiri dhulkaasaad meel ka degtaan kama deganine dhul annaga aan leenahay baan degannahay haddaadan taariikhda aqoonin anaa hadda dawlad baa laga hadlayaa dadka reebti ka hadlayo dawlad baa laga dhagayso may dadka iska dhaf aniga iga dhex gelin tayada way ku soco adiga kama dhex gelin jaal dhamayso idagayso dadkaas alaad waa dhex degantiin meel baa ka degantiin no dhul baanu leenahay ma fahmaysaa annaga hanaga dhigin dadaan dhul lahayn iyo dadaan maxaa la yiraahdaa aan maamul goboleed lahayn midda si xigtaara inaan kuu sheeg waxaa tiri maxay isku dhiibaan waxa loo celinayaa daaragtii wadankii baa loo celinayaa dad waxaanu nahay ee lala aqoonsan yahay baa haddaad dawlad tihiin annagu civil war baaba nagu dhacay dagaal sokeeye baa nagu dhacay baanu taagannahay oo dhulkeena uu burburay baanu taagannahay oo weliba dawlad lagu ku istaagta ma haysanaanu taagannahay idinka haddaad tiri dawlad baanu leenahay dad meel istaagay baanu nahay dad la yaqaanaan nahay baahida idin keentay oo aad isku dhiibaysaan maxay tahay baahida aad isku dhiibaysaan aad halkan annaga baasaboorkan la ordayno kandi buluuga baasaboorkan Soomaaliya la ordayno aan dhahayno waxaan u baahanahay maadaama civil war wadankeenu ka dhacay government aan haysan hadda ma waag horan ka hadlaynaa magangali aan u baahanahay saasaan haysato
idinka maxaa annaga naykeen soo raaciyey haddaad tihiin dad dowlad leh dad aqoonsi leh dad la garanayo dad caalamka u dalxiisi kara dad caalamka maraykan adduunka qaramada midoobay la fadhiisan kara haddaad tihiin baahida idin keentay inaad Scandinavia intaad timaadaan aad iska dhiibtaan maxay tahay waa midda aan kuu sheegayo iyadana dowlad waxaa lagu yaqaanaa markuu qof haysto inuusan dadkiisa baahanin inuu baasaboordada u qaadanin inuu baasaboordada qaadanin uu halkaa ka istaago uu dhaho waxaasaan haystaa waa ka maaranaa sida dee waddankan haddaan joogo kale Sweden oo kale laakiin waa inagula dhuuqayaa maamul goboleed ma ihi dowlad baan nahay oo adduunkan laga aqoonsanayn baasaboora haysataan aan la garanaynin meel xitaa maxaa la yidhaahdaa aad dad aan la kulanta carabaha unbaa u tagtaan adduunka kale lama kulmaysaan xitaa adduunka kale ma laga aqoonsana meesha madaxweynaha Soomaaliya tagay farmaajo ama madaxweynaha hadda Soomaaliya isuu tagay adduunka la kulmay qaramada midoobe la kulmayo ay xitaa idinkoo ka muuqday laba arkeen sistaray waxaan ku leeyahay maamul goboleed weeye maamul goboleed baan wada nahay aan Soomaaliya wada hoos tagno Puntland Khaatumo Somaliland maamul goboleed weeye hadda aan library waan dhahayaa meel kastaba Jubbaland dee waxaan ku leeyahay meeshani waxa weeye yaa adeer wada maamulkaasaan wada nahayo Soomaaliya aan hoos tagnaaye dee yaa nagala daay faanka haddii aad dowlad tihiin aanu aragno baasaboorka haysataan taasna daliil weeye adduunka meesha linaga soo dhaweeyo yaa ixtiraam idin siiyey 30 sano raadinayseen 30 years 30 sano raadinayseen ilaa haddaan weli la keenin xididka runaan kuu sheegayaa run baan kuu sheegaya aniga runta igu imow maalinkaa dowlad meel degta aan noqotaan aad istaagtaan oo baasaboor buluug annagaasna cagaarkiisa ama kafaygiisa aa wadataan oo adduunka lanaga aqoonsanaado oo laydiin dalxiisi tagayo sida halkan aan joogno oo kale aatiin ama sida Soomaaliya oo kale idin aqoonsayo markaasoo kale waa igala hadli kartaa laakiin Yurub baan kula joogayaa baasaboorkaagaan wadanaya Soomaaliya meel kasta waxaagii baan wadanaya no Somaliland waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya waxayna ka mid tahay maamul goboleeda kale ka tirsan Soomaaliya Puntland Khaatumo Jubbaland dee maxaa kale wax kale meesha ma yaalan ku wada hadalno runaan kuu sheegaya xaqiiqda kaala hadlaya ma dhamaysay waan dhamaystay horta waxaad tidhi maxaad ka soo doontaan Yurub weli maad oran adigu Scandinavian kan yara joogtaad ka hadasho maxaad ka soo doontaan baad tidhi ii haye soo noqo albaabkan xirayaa weliba Yurub oo dhan maad sheegin Scandinavian kan yaraad ku nooshahay baad ka sheekaysaa oo tidhi maxaad ka soo doontaan horta Yurub oo dhan Afrikaan oo dhan baa Yurub yimaada waana loo soo wada dhoofaa kuma xidhna ma dowlad haysa ama ha haysanin ama ma haysatid ama ha haysan Afrika iyo Aasiyaba iyagoo dowlado waaweyn leenta laga yimaado wadamadii loo shaqo yimaada waanu shaqan nimidna walaalo waanu shaqan nimidna oo Somaliland iyo aakhiraba waa loo shaqaystaa ilagaysaa Somaliland iyo aakhiraba waa loo shaqaystaa marka waanu shaqan nimid xagga maxaad u timaadeen taadna leedahay oo waanu idinka dadkoo dhan way wada qabaan in maxay haytay la wada yimaado la soo taariibay Carabi iyo Cajaba waa la soo taariibay iyo Afrikaanba taa qodobkeedii waa diga haysaa ta kale aad ka sheekaynaysa Khaatumo madaxweyne ma leedahay ku xigeen ma leedahay oo baarlamaan ma leedahay oo aqal cad ma leedahay waa taas yes taad ku rafatay aad leedahay imise sanad aqoonsi sugayseen Soomaali imise sanad xornimo sugaysay Soomaali imise sano ayay xornimo sugaysay in Ingiriis haystay in Talyaani haystay waa qodobkayga imise sano ayuu maxay haytay xornimo la sugayo loo dagaalamayay waxaan loo dhididinoo loo samrin lama helo annagu taayada ixtiraafkana halkaasaan ku sugaynaa ixtiraafka meeqasna qaadaysaa ha iga soo dhexgelin jaalle sorry hay halka yagaas ayaanu ku sugaynaa may fahmaysaa haka qaldan ma fahmaysaa مساجكاس halka yagaasaanu ku sugaynaa message waxa lagu soo qoray in
may wallahi ma waxay tahay waxa dhin lagu leeyahay email wallahi inuu qof bila aadan lambarkayga halkan igu jira inuu haynin xataa adigaaga ma haysid halkan lambarka Ethiopian baa igu jira xataa adigu ma haysid lambarka halkan igu jira taan kuu sheegaya waxay tahay taaniyan waxa tiri ma haysataan baasaboor maxay ma qaadataan oo kan ma qaadataan baasaboor halkaas ka dhig baan ku uri baasaboor Soomaaliland way lada wadamo lagu tagaa jira iyo wadamo lagu tagin ka Soomaaliya imika wadamo lagu tagay wadamo lagu tagin baa jira ka Djibouti baa la qaataa dadka barkeed ka Djibouti baa la qaataa Soomaaliya meelaan lagu tagin baa jira Soomaaliland waa saas kale baasaboorkeeda wadamo lagu tago wadamo lagu ma tago taad ka sheekanaysa maamul goboleed baynu wadanahay waxa la yiri maxay ahayd hadalkana dhacadkana ha jarin aad waxyaalo dhanba ka dhowraya anu ma fahanti si xor waxba ma dhowrin waxba kuma qarsoonay wax su'aalaha waa isweydiinayaan wax weyn maahan midda kale imisa magaalood leedahay waa calankaagu ka taagan yahay madaxweyne ma leedahay ku xigaan ma leedahay maxay tahay aniga markaad leedahay Soomaaliyadan aad u ordayso madaxweyne kamida ayaa su'aal la weydiiyay waxa lagu yiri madaxweyne maxaad ka leedahay Khaatumo markaas uu kama jawaabi karo waayo uu og yahay Soomaaliland badeeda inuu soo galin madaxweynahaasi una Soomaaliland badeeda ka jawaabi uu og yahay ama Soomaaliland wax ku saabsan uu ka hadlayay haday dhageysa jaalle waa qalad badeed dad maya Soomaaliland wax ku saabsan ama magaalada Soomaaliland kamida haye man isku jawaabna ma soo dhageysanaysa maxaa dhacay mihiidka ku gaaray dahabo aniga ده صوتك هذا يقصد نحكي لك جاله مايا waxa weeye aray aad tiri waxa tiri dad aan naloo dirsan baa su'aal weydiinaysa soo inuu maya hadda waad iyad ka jawaabaysaa waxaasi ku soco sallallahu ala nabi alayhi salatu wasalaam waxaan ku sheegayaa maxay ahayd marka madaxweynaha muxuu ku jawaabay lagu yiri Khaatumo maxaad ka leedahay kama jawaabay buuri waayo wuxuu og yahay inuu dhulkan dhul Soomaaliland yahay uu ka jawaabi lahaa haduu dhulkaasi Soomaaliya ama Soomaaliya kala ahaan lahaa wuxuu oran lahaa xilligaasan maxay u sugaya kan u sugay laakiin dhulkan waa Soomaaliland kamana hadli karo Soomaaliland weeyaan una ka hadli kareen haday dhageyso marka habar yartani way dhaqaaqday cidna uma baahan hawaday tagtay iyada loo tahriibaya Soomaaliland inuu tareenku ka buuxsan meesha dimuqraadi weeyaan waa maxay iyada federaal noqonaysa waadho federaal bay noqonaysaa waxaan ku rimika yaan lagaaga badinin meesha Soomaaliland baa cid u baahan tahay ilaahay mooy cid u baahan tahay ma jirto dekada alaabisa uga soo degayaan adduun halkan waxa ka shaqeynaya lacagtii Soomaaliland darkii waxaan ku halkan waxa ka shaqeynaya dastuurkii ciidankii qaranka waxaan ku araariyudi adduunkii saasa uga shaqeynaysa madaxweynihii ku xigeenkii ayaa shaqeynaya idagaysa hada jacay wasiiradii xildhibaanadii adduunkii saasay u shaqeynaya quruxdeeda waa adiga arkay adduunkeeda waa adiga arkay dastuur Soomaaliya hal maxay tahay qof iyo cod ma haysato wadankan aad ku rooraysaa hal qof iyo hal cod ma haystaan annagu 18 jirku 15 jirku saas codkiisa ugu ridanaya ku rabo ikhtiyaarkiisu leeyahay imika shicibka Soomaaliyeed ikhtiyaar ma leh اختيار ماله الشعب الصومالي كوسع صواف شرده ورك انا صواف شرده ما راح يوم دغيسني ما انت صواف شرده ما راح جعيل دي ما يماك با ماشي موضوع اسكسي ترى راح يسال سؤالها ابو ميمسن بان سويدينينا ها waxaan ku leeyahay imika Soomaaliya ma haystaan xurriyada xildhibaano lacag qaadanaya ayaa wax u soo doorta dawarsada dooq male xildhibaanku lacagtiisu ku xisaabtamaya laakiin annaga cid nooma soo doorato sanduuq baa lagu hor dhigayaa haddaa doonto waxaad ugu ridaysaa ka maxay tahay xaafadda 15aad ka yimid haddaa doonto adeerkaa baad ugu ridaysaa haddaa doonto ka dawladda u fiican baad ugu ridaysaa doonto mujaahid baad ugu ridaysaa annagu waxaan ma naqaano marka adduunkan wuu socdo dimuqraadigaas la joogaayo meel federaaliye balaayo wax soo dooranayaan maxay haytay ha u xaqal taagine halkan aad ku beerantay waa Soomaaliland iimaansan ku leeyahay soo dhawow waa mahadsantahay idageyso marka dhagahaaga isiibaan ku leeyahay dadka nimika maxaa idinka qadin qabiil baa laga sheekeeyay dadka iska daa ana hadlaya dadka iska daa idageyso marka dawladda lagama sheekeeyay qabiil istajiya waxa laga dadka iska daa dadka marka aniga hadli miya ku soco waaye ku soco yidi marka aniga marka baashi ku soo wareeji waan ku iri xidhigta idageyso waxa tiri xildhibaan ma leeyihiin madaxweyne ma leeyihiin kan ma leeyihiin geeyo isagana ku soo qabanay maamul goboleed kasta madaxweyne waa leeyahay idageyso marka dhagaha isii
maamul goboleed kasta adeer maamul goboleed kasta madaxweyne waa leeyahay baarlamaan waa leeyahay wuxuusan lahayn ma jirto taana la soco haddaadan garanaynin annagaa ku barayna oo noo imow oo na weydii laakiin adoon aqoonin aadan baranin inaa halkaa la soo fariisatid mid soconaysa ma ahan taana la soco waxaana inaan kuu sheegay xididta dhagahaysii waxaa tiri dhulka dhan waa la tahriibaa baa tiri waa la tahriibaa maxaa idin tahriibinaya dowlad baan dhaysoo taa tiri tahriibku waxa weeye dadaan dhul haysanin dhulka waxaa ka wada fiiriya dagaal weeye oo markay isdhiibaanna sharcigoodii bay isku dhiibaan oo waa waddankaasaa ka imaana yidhaahdaan waa adiga yidhi waddan kastaa laga tahriibaa layidhi maxaa idin tahriibinaya waxaa tiri dowlad baana maxaa tahriibka maxay tahay yaa idin bursanaya yaa idin baacsanaya yaa dabada inaga jira maxaa la tahriibaysan aaway waxaad leedahay waanu haysanaa bal dhegayso maxaa idin tahriibinaya tahriib baad ku waalataa tiri waa tahriimaayo qof kasta dhul kasta laga tahriibaayo maxaa la tahriibtaan halkaa dhigin halkaas waxaa ka cad in idin dowlad haysanin ina maamultiin soomaaliya ka tirsan hoostagta weliba dowladda soomaaliya hoostagta inaad tihiin ayaa taas caddaynaysa midda si xigtaan kuu sheega xidigtahay waxaa weeye halkan kala soo hadalkayga dhagaaysi marka labaad yaa waxay tahay xidigta ama cirka aad ama dhulka aad ama meel kasta mar maamul goboleed way somaliland soomaaliyana ka tirsan tahay wax kastana waxaa loo soo maraya madaxweynaha soomaaliya baasaboor aad leeda waanu haysanaa wax baasaboor anigu ma arkin wax dowlad la dhaho aan ka istiil ilaa iyo hadda ma jirto inaa baxdaan dowladda soomaaliya ka tirsan tihiin wax kastana soomaaliya uga daba fadhiisataan oo la idiin soo maro soomaaliya baan aniga arkaa meel baanu degnaa sanduuqa wax ku ridaysaan alle sanduuq wax ku ridana waa ku kala baxnaa kana ku kala baxnaa adeer sanduuq lagu kala baxo aan weliba dowlad yeelanin maxay tahay sanduuqan ma liskaga guraya warqadaha beenta ma liskaga ridayaa ma soconayso sanduuqa waxa weeye marka wax lagu rido adduunkaa loo geeyaa waxa weeye ayagaa fiirinaya waa inay yimaadaan ee u gartaan waddankan inay dowlad tahay oo markaan la arko sida soomaaliya dowladdeeda markii la qabanayo adduunka dhan baa la iskaga yimaadaa waa loo codeeyaa dadka laakiin idinka hal famil baa isku codaynaya waa hal famil bes waa hal famil meel isugu yimid baa isku codaynaya hal kartoon baa lasoo qaadayaa hal boorso halkaasaa leeyahay lagu rido waa hal qabiil maaha wax kale marka xidibtaay aniga waadan i wareerin adoon is wareerin annaga qaatumaana la yiraahdaa madaxweynena waanu leenahay maamulna waanu nahay maamulada soomaaliya ka tirsan marka baawur baa buuxayaa tiri soo raac tareen ah ilmaada reeyo halkan baad buuxdan qaxooti ku tihiin oo maalin kastaba xamar baan ka nimaanay intee gabdhood ii yimaado igu yiraa Sabrina ii sheeg ismaay xagee ku taala intee nin interview iga caawi waxaan ii sheeg waxaan ma garanaysaa adeer raas ku sheegayna dowlad ma jirtee ilmaada reeyo 30 sano waxa weydeen adduunka hadda waxa haray baa iska yare dib u heli maysaane Soomaaliya ka tirsantiina wararka inta naga deysaan maamulka annaga heesanoo kala heysataane qaatumi Soomaaliya wala maamulka Soomaaliya hoostage inaga jooji baash yaanan baasha la iskaga daba keenin haddaan ku leeyahay sanduuqan waxana ku xaysmaysid carabaha bas ay inugu carabahaasna waxa weeye wax yar ma garanaysaay bay inugu caawiyaan ma wax kale inugu caawiyaan ma jirto waa kuwana dowladda Soomaaliya way tagaan maamulka haddaan kuu sheegayo xildhibaanay ku leeyihiin ayaga dhanba halkaa fadhiga madaxweynaha habeen iyo maalin dad buu dirsadaa baa halkaasay fadhiyaan waad ku jirtaan Soomaaliyaad ka tirsan tihiin yaa waxba la isku sheegin maamul baa tihiin maamulada Soomaaliya ka mid ah la isku soo sifaayna adeer annaga waxa weeye dad halkaa wada degan oo ma garanaysa laba maamul kala la maanahay yaa la isku soo xadgudbin dad dhan baa rabtiin taariikh leh dad dhan baa rabtiin oo magac leh inaad tirtirtaan qaatuma si kasta waa maamul gobolka Soomaaliya ka tirtiraysa ma jirto maamulada Soomaaliya ka tirsan bay ka tirsan way ka tirsanaan doontaa waligeedna haddaysan jiri lahayn maanta waxaan noqon lahayn
somaliland hadda anaga raacin maanta ama qaatumo ama goboleedkeena ku darsan lahayn maanta wallahi waxa madaxweyne caadi baad yalla adduunka lina aqoonsanaan laha laakiin annaga aan ahayn de maxaa khaldan annaga aan ahayn annaga Soomaaliya maanta ah سوي أنا كل حال وحقول لك داي هذا الولاد سومالي وسطياتين يا أوكي ما دميستي